kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda. Qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo war cusub ka soo saartay heshiis ay kala saxiixdeen Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Markaan Kenya xaaladda ayaa ku sii xumaanaysa. Soomaaliya oo si rasmi ah u bilowday mashruuc faa'iido badan u leh dadkuna ay hambalyeeyeen. Maamulka gobolka Banaadir oo soo bandhigay hub daxaleystay oo laga helay guri ku yaala Muqdisho. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo heshiis ku kala saxiixday Ankara. Iyo duqa Muqdisho oo digniin u diray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wararkeena ku daawan doontaan. Inta aan gudagelin ka hor faahfaahinta wararkeena waxaa naga xasuusina daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay halkan aan ku soo gudbino. Waxaa noo soo socdo warar ay ka mid yihiin maamulka gobolka Banaadir oo soo bandhigay hub daxaleystay oo laga helay guri ku yaala Muqdisho. Hase yeeshee marka hore aan ku bilaabo Kenya ayaa war cusub ka soo saartay heshiis ay kala saxiixdeen madaxweynayaasha Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay si rasmi ah u dhaqan gelisay heshiiskii ay madaxda labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ku gaareen magaalada Nairobi bartamihii bishan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya oo qoraal soo saartay ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay joojisay duulimaadyada Muqdisho ee ku sii jeeda Nairobi inay soo maraan magaalada Wajeer. Sidoo kale diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo xildhibaanada dowladda Soomaaliya ayay sheegtay in fiisaha Kenya ka qaataan gudaha Kenya, iyadoo intaas ku dartay in ay ka go'an tahay in ay fuliso heshiisyada labada dal ay kala saxiixdeen lana caadiyeeyo xiriirkooda. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa diyaaraddii ugu horreysay ee si toos ah uga duusha Muqdisho waxa ay ka degtay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Qaybihii hore ee jariiradda media ayaa daawanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilowday dhoofinta mashruuc kaas oo ay si aad u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed. Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo ay weheliyeen wasiir ku-xigeenka dekedaha, guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga, xubno ka socday mashruuca geel ayaa daahfuray mashruuc dhoofinta mooska oo suuqyada dibadda loogu iib geynayo. Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo ka hadlay munaasabadda daahfurka dhoofinta muuska oo ka dhacday dekedda Muqdisho ayaa sheegay in suuqyada dibadda ay diyaar u yihiin muuska Soomaaliyeed oo sumcad ku leh dunida, isla markaasna beeralayda loogu dhiirigelinayo in ay muuska beertaan. Wasiirka oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxaa hadalkiisa ka mid ahaa, maanta waxaan halkan iskugu nimid in aan ka wada qayb galno munaasabadda lagu sagootinayo moos loo dhoofinayo waddanka Sacuudiga iyo kuwo kale oo loo dhoofinayo waddanka Turkiga. Moos waa la dhoofin jiray, laakiin kani waxa uu kaga duwan yahay waa mid tayadiisu aad loo dhowray, shaqo aad ah oo diyaargarow ahna loo sameeyey. Waxa uu buuxinayaa shuruudaha mooska adduunka loo dhoofiyo. Waxaa kale oo u dheer yahay in tayadii mooska Soomaaliya lagu yaqaanay ee caanka ahaa uu sidii oo kale u yahay, hadday tahay xagga xajmiga ama xagga dhadhanka. Waxa uu hadalkiisa sii raaciyey in suuqyada adduunka aad looga baahi qabo muuska Soomaaliya oo sumcad wanaagsan leh. Waxaan rajaynayaa in beeralayda Soomaaliyeed ay ku dhiiran doonaan inay dib u tacbaan beeraha muuska. Suuqyadii dibadda waa diyaar. Muuska Soomaaliya aad iyo aad ayaa loo rabaa. Sumcaddiisu cirka ayay maraysaa, adduunku wuu sugayaa, ayuu yidhi wasiirka. Intii lagu guda jiray munaasabaddan ayaa dekedda Muqdisho waxaa laga dhoofiyey 2 kuntuneer oo hordhac u ah oo ay hubinta tayadooda iska kaashadeen Wasaaradda Beeraha, shirkadda Geel Project iyo ganacsatada Soomaaliyeed, kaas oo si tijaabo ah loogu diray dalka Sacuudi Carabiya. Si kastaba, arrintan ayaa ah yididiilo cusub oo shaqo abuur badan yeelan karta. Waa marka fursaddan si fiican looga faa'iideysta. Qaybihii dhexe ee wararka warbaahinta jariiradda ayaa daawanaysaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay hub daxaleystay oo laga helay guri ku yaala magaalada Muqdisho.
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa sheegay in hub ay ka heleen guri ku yaala degmada howlwadaagga gobolka banaadir. goobta hubkan laga helay ayaa waxaa sidoo kale booqday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maamulka maaliyadda ee gobolka banaadir ibraahim dheere iyo saraakiil ciidan. guri ku yaala degmada howlwadaag ayaa waxaan ka qabanay waxyaabaha qarxa oo gurigaas ku aasnaa, waxaana baaritaan ku wadnaa guriga iyo dadkii deganaa. waxaan u mahadcelinaynaa shacabka degmada oo xogtan nala soo wadaagay, ayuu yidhi tuulax oo shir jiraa'id ku qabtay guriga. uu sheegay in laga helay waxyaabaha qarxay. sawiro laga soo qaaday hubkan ayaa muujinaya tiro madaafiic loo isticmaalo hoobiyaha oo u muuqda kuwo daxaleystay oo muddo dheer aasnaa, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in daadadkii ka jiray muqdisho ay soo saareen hubkan. dhowr madaafiic oo daxaleystay in shacabka looga dhigo wax weyn oo warbaahinta la iskugu yeero la iskuna sawiro waa arrin aan loo baahnayn. waxqabad intaas ka weyn ayaa looga fadhiyaa raggan dhalinyarada ah ee maamulka haya. keliya waxaa loo baahnaa inay meesha ka qaadaan, meel ku habboonna geeyaan, ayuu yidhi oday ka mid ah dadka deegaanka oo la yaabnaa mas-uuliyiinta meesha iskugu timid. jariirada media ayaa naga daawanaysaan. dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa wadahadal laba geesood ah kula yeeshay dhiggiisa Turkiga mudane Mulfud Cavusoglu magaalada Ankara, iyagoo kala saxiixday heshiis sare u qaadaya iskaashiga iyo waxwadaagga labada wasaaradood. labada wasiir arrimo dibadeed ayaa ka wada hadlay xiriirka laba geesoodka iyo siyaabihii loogu xoojin lahaa wax u adeegyada dana wadaagga dhinacyada kala duwan leh. heshiiska is-afgaradka ay kala saxiixdeen labada wasiir ayaa waxa uu ku saleysan yahay iskaashiga tababarka diblomaasiyadeed, isdhaafsiga xogaha iyo dukumiintiga ee Soomaaliya iyo Turkiga. qaybihii dambe ee jariirada media ay haatan ku sii shaqeynaa. duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa digniin adag u diray gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xarunta degmada Daynile kulan gaar ah kula qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isagoo kala hadlay xoojinta la dagaalanka Al-shabaab. kulanka amniga caasimadda quseeya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaan Cabdulaahi Gaafow oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka NISA. duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ku ammaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiishooda sida ay naftooda iyo dhiigooda ugu hureen xoreynta dalka iyo badbaadinta shacabka. waxa uu gudoomiyaasha degmooyinka faray in ay la shaqeeyaan saraakiisha ciidanka xoogga iyo booliska. duqa Muqdisho ayaa sheegay in gudoomiyihii degmadiisa qof lagu dilo ee soo qaban waaya qofkii dilka geystay uu xilka ka qaadi doono. waxa uuna sheegay in xilkaas uu magacaabi doono saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga oo haysta gaadiidka dagaalka, kuwaas oo awooda inay soo qabtaan qofkii dilka geystay. guud ahaan saaxiibayaal waxaa halkaasi nooga dhan wararkii aad ka daawanayseen jariirada media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka dhaca ee halkan aanu kusoo gudbino.